maxaa ka jira deegaanka Soomaalida xukuumadda Mustafa Cumar xildhibaanada baarlamaanka deegaanka iyo qalaasa ka dhaawurmay maxay ku dambeysay xildhibaanadaas oo cabanaya iyo arrimahaas balan dhageysano daawasho wanaagsan kuna soo dhawow Amuud TV welcome haye maxaa dareemaysan xildhibaanada anagoo 120 xildhibaan markii uu kusimaad deegaanka Mustafa Cumar si sharci darro afeekii baarlamaanka xilkii kaga xasaaladii kaga qaaday isla ajendayaashii iyo waxa la wax ka saaftuubay waxa dhacday inay 120 xubnood dawladda uga soo dareereen halka dhigaygu maanta waa karis xuliyaduna ku waxa kaloo jirta in xildhibaanada eegana qaarkood qasab lagu celiyay qaarna hoolka dhexdiisa askarta inay ugu hanjabayso waad maqlayseen waadna wada arkayseen qaarna hada hoolka lagu haystaa Yuusuf Deero oo kale askarigii garab taagnaa wuxuu ku lahaa waad maqlayseen waana xildhibaanadii codka shacabka watay ee shacabka metelayay maanta waxa ka dhacday arrin taariikhi oo taariikhda geli doonta xildhibaanadiina ahmiyadoodii way ka soo wada dhaqaaqeen markii ay afayeenadu ula timid wax sharci darraa dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badantay noogu yimaadaan dabadbaadiyo bulshada saaka maxaa dhacay saaka waxaa dhacday xildhibaanadii in codkii la siin waayo oo shakhsiyaad aan la doonaynin mooyeen codkii la soo dhigay in la siin waayo waxaa kaloo dhacday dad yar ajandii la soo dhigayna la diido laba ajandoo la soo dhigay si cad loo diiday waxaa kaloo wehelisay maxay ahaayeen ajandayaashaas waxay ahaayeen kalsoonida xukuumadda iyo kala noqoshada iyo afhayeenka xilli diyaarintiisa cusub afhayeenkii iscadilay afhayeenkii bedeli lahaa in la xil loo diyaariyo waxaa kaloo wehelisay gabadhu inay iska waayaan awooddii ay lahayn xildhibaanadu inay tuftay oo ay diiday inay codkii u qaybiso dad yaroo shaqaalaana intay tiraa halkaa taga inay tiraado intaas yidhi socod ay tiraado oo codkii u diido inuu sax yahay yaa diiday imisaa gacanta taagtay ama tiran dhibaatadaasaa qabsatay saasaa ka soo baxday dhibaatada saaka dhacday waxay ahayd ajandayaashii baarlamaanku waxay codsadeen in xukuumadda kalsoonida loo qaado markay baarlamaanku codsadeen xukuumadda in kalsoonida loo qaado arrintaas baana lagu hor istaagay baarlamaanka iyo xukuumadda oo afhayeenadu la socoto afhayeen ku-xigeenadu la socoto arrintaasaanu isku afgaran weynay markaa isku dhac baa meesha ka dhacay baarlamaankii waan ka soo dareernay wax yaroo meesha lagu celiyey baa jira waxaan bulshadannada u caddaynaynaa shacabka islaamulka Soomaalida Ethiopia islaamulka Soomaalida inaan kala noqonnay kalsoonidii xukuumadda DDI waan kala noqonnay xukuumaddii ha dhacdo Axmed ayi waxaan meesha maanta ka caddaynaynaa in sharci darro ay ka dhacday kala fadhigii baarlamaanka caadiga ah ee u qarsoomay tobnaad ajandayaashii shirka hor yaallay ajande ka mida oo ahaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda uu hoggaamiyo Mustafa Maxamed Cumar uu hoggaaminayay inay xildhibaanada soo dhigeen si buuxda codkaana u taageereen kadib markii arrintaa dhacday waxay noqotay in arrintii ay aftuubto afhayeen ku-xigeenka gabadha afhayeen ku-xigeenka Fardowso Maxamed ay aftuubtay markaa kadib oo ka xukuumadda waxa weeyaan xubnaha golaha xildhibaanada sharafta leh oo 110 dhan hadda waan ka soo baxnay waxaana go'aan ku gaadhnay in mataqaana go'aankanaga ahaa xukuumadda kalsoonidii waan kala noqonay marka waxaan farayaa dawladda federaalka hay'adaha mataqaana kala duwan baartiga mataqaana BB si degdeg ah mataqaana xukuumad shacabka u badbaadiso inuu soo dhiso bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan shacabka deegaanka Soomaalida waxaan ku wargelinaynaa in afduub culus ka dhacay guriga golaha baarlamaanka kala fadhigiisii tobnaad ee caadiga ahayd maanta afduubkaas oo ka mid ahaa lixdii ajanda la soo dhigay si xor ah in loogu daro ajandayaal kala noqoshada magaranaysaa kalsoonida xukuumadda oo kale kusimaha hadda magaranaysaa si hayaha ah taasi markay dhacday waxaa guriga gudihiisii ka dhacay in lays afduubo laysma xoogo awoodna laysu adeegsado kadib annaga oo baarlamaan dhan 120 xubnood ah waxaan kaga soo baxnay in aanan u dulqaadan karin dhibaatada ka jirta meesha kalsoonida xukuumadda saacaan kagala noqonnay hanjabaad badan iyo albaab xidhasho badan iyo macnaha boorsooyinka gabdhii lagala hadho moodaladii naloo diido dhibaatooyin culisna ilaa hadda meesha ka jiraan waxaan idiin sheegaynaa dhammaan shacabka Soomaalida waxaan u sheegaynaa ee ku nool 12 gobol inay si xor ah uga hadlaan Mustafa cambarayeen barnaamijka ka sameeyeen arrinta maanta baarlamaanku sameeyay assalaamu calaykum annagoo xildhibaanadii heer deegaana markaan aragnay in sharcigii iyo dastuurkii la xoogayo
afhayeenkuna hogaamintiisa ay boqolkiiba boqol ay xumaatay isaguna uu la hadlayay dad uu gooni ula soo ballamay oo codka u siinayay ayaan annagoo 120 xildhibaan aan ka soo baxnay waxaana idiin sheegaynaa shacabkii annagana soo doortay in aynan xukuumaddii aan codkii aan kala noqonnay waan kala noqonnay هون الشيخ هذا السلام عليكم أنا وأنا حلبان مركي أمامتي حاجات كسوب حاجات كسوب أنا كسب عندك ماذا السجاج طبعا كندا ونعد لا يوسف وبرضو اليوم ما بركي اللي لقيت ولا يبحري وهذا بنات وصل بحاجة حاضر كسوب حنا المركب وأنا كسب حنا مركي أنا أطلع قاضي عشان دياشة عذيان عفرتني ستات أنت كلنا ديدان حدوان أنت بدنا ديدان بقولي أيوم باشرك الأخطبوط اللي يدي بقولي شنبا ساسون كل سكسون. magacaygu waa xildhibaan Khaalid Muuse Cali ana xildhibaan ka soo baxay degmada Doorbay waxaa saak furmay fadhiga golaha xildhibaanada kadib waxaa la soo dhigay ajandayaalkii oo ay ka koobnaa ilaa 6 ajande oo la soo diyaariyay xabiiska golaha xildhibaanada la soo diyaariyay laba ajando cusub golaha xildhibaanada guriga ku soo daray labada lagu soo daray in cod loo qaado waa la diiday labada lagu soo daray waxa weeyaan waxaa ka mid ahaa in afhayeenkii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida ما تقاناي بوسكيس اللي بوحيو قلها أو يش أفعال يشو قدر كل بعض وحوه هاي حلبانا ذا كدرين إن حكومة اللي قالنا نقطة كرسوني ذا أما بقى كرسوني إلى غيرينها حكومة ذا قلها حلبانا ذا كقبان أما شعب منه كقبان أي هاد إن لو نقدر أجدو لا بعد قدر دبعتها كي ما ضي إن لا الله قادنا والد دير السعد بان لو ديري حاصل هري أجنديال كل إحدى هاي كلا ذاتك إن لا أصحيح قعدت كتاجي وحيان تردو kontan lix qof ay hayeen tiro waxa meesha golihii laga sheegay oo uu shirkidoonka sheegay 110 xildhibaan ayuu sheegay ahayd dan hadii ay suurtagali waayso wixii lagu daray xildhibaanada ay soo jeediyeen ajandiyaalkii lagu daray looda ajandaha ee kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyo afhayeenka cusub ma taqaanay ku daristiisa asxaabtiisa ahayd ay diideen golihii shirkidoonka uu diiday golihii uu cuntul waa inuu sii fadhiyo in tiradooda ugu badneedna way soo baxeen لا يترى هذا قبل يتغنى عن قناة الجبنة ترى بدنا وصار حدبنا وصار كلتي اللي كسوق قال إنه عيدا بحليني لبعض بدنا إنه يكون عليه هذا ومرجع وما ليه ومثلية وحوي عيدا كي وحاجة شرعية أنا هذا بمثلين أيام أنا سيارة قلدان أولد من عيدا كي وحاجة تندقي بقى سكوا دحان الشرعية عيدا شرعية مثلا ماشي بسيسو وتقاناي ودك إن أي دبعتها أذك وشرح جبنا هاي قطع ريديان سوماليو أنت خيال الشيء وما سنتي. بسم الله معي وعرض رحمت ساكو حنوني معنا كلا فرد جنجي وحوي محيد الشنار قرم حل بعنا الفدي وحي هاي بقولي وحي هاي سيدنا قطريو وحوي محو هاي حلقي وحوي حاجندياش ماشي يعني اللي حاجندي هاي أنا قال بقى أجندة قدر سناي أفيان عسبني ماشي محن كل هذا لو صادرة وأجندة أي نقطة إني وحوي كرسوني ولا قلنا نقطة محيدة حكومتها أيام قصدر سناي حلقي وحوي أجندياش أنا عدك الله قاعد لها أيا وحوي عدك لقلقلية كدي مركي عدك لقاضي أي تبقى عن ترى كمباني لح مناط أيا وحوي أنسحية إني وحوي أجندياش الأنسحية أمني كلوي ديرين عدك لسوي يرينا وحوها بقالي كمان اللي إني عدك محفر هذا وحيان نظام مفتوح وعبور السوق فربنا ما ماشي محفر كتير دنك عيدا وحوي قبل واحد الكرسي كلا جرها تدور حتى الألباب كانوا عليه حالات بدنا ما ماشي كده عليه سيدون بس هاتي أنا وأنا ما ماشي فتنا إنه شغلنا إنه حكومة الكرسي كلامنا قناي سيدا سانون أولنا قناي وحالنا هاي وحوي محفر هذا أنا شيء جينا شعب كنا كشرف كلا أنا شيء جينا إن السيدا أولا صعدنا السيدا هو قاعدين أنا وحوي محفر واجبات كنا صارنا كسب إحنا طلبات إن شيء جي وحويان إني وحوي محن كل هذا إن فدرالك حكومة شرفت له فدرالك إني 24 حوار أي وحوي نقصوا قارن سير شعب كود بدباد أي قصين هاي نقصوا قارن مدة كلين شيء جي وحويان إن محو هاي حزب بي أنا أقول حزب بي بان هاي حزب دورات الشعب الصومالي إثيوبيا هاي وأن سووا رجني ما عن عصوي بي ذا قادني إلى أي نفرس حزب بي بان لا تاجن هاي وأن وحوي أهان هنا بل لكن حالة ما أنت تاجن يقولها برلمان تيجان الشعب كتاجن حكومة فدرالكم إن السوفر جلسوا 24 هورنا إنه سوفر جلسوا أيان وحوي محن كرا باقو قارسين
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلبان أحمد عبدي رونهانتي ساكا وحنا عي واحد لو قمادو أنا وحنا عين حلبانadii deegaanka shir baan naloo qabtay shir baan naloo yeelay waan u ogolanay goobta shirka lagu qabtay waa madaxtooyada ma ahayn goobtanadii annaga nalagu qaban jiray sababtaan u ogolanayna wadanaha shaqeeya ku tayaga ajendayaal la xiriira inaanu ku aragno lix ajenda xukuumadda soo dhigtay laba ajenda ku darsan oo ah kalsooni kala noqoshada xukuumadda maadaama ay ku guuldareysatay hawlihii nabadgelyada horumarka maamulka suuban iyo shaqooyinka loo imaday ay ku guuldareysatay hal sanana xildhibaanada ay shir u qabanay ayay lixda ajenda soo dhigtay annaguna labadaas ku darsanay kalsooni kala noqosho iyo afayeen cusub way afayeen baa meesha ka baxay haddayna saad ku soo baxday hadda waxaan ku soo baxnay ugu yaraan 103 xildhibaan way soo baxeen ilaa ahaa quorumku 100 iyo wuxuu ahaa 84 muxuu ahaa isoo sheegay hadda inta aan banaan aqlabiyadda marka soo baxay aqlabiyaddu way soo baxday dad fara badan oo gabdhaha doorashooyinkooda laga haystay xoog lagu celiyay yaan lagu ceeboobay meesha ku jirta xukuumadda federaalka waxaan amrayaa meeshan dhibaata ka jirta deegaanka haddaad shakhsi iyo laba ruux aad u danaynaysaanna u daneeya haddaydan u danaynin annagu shacabka iyo sumcadiisa ma garanayno waxaana raalli ka ahayna maanta cid kuma qasbi karto xukuumadda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhu waa inay si adag isu fargeliyaan cid kasta oo aktiifista iyo cid kasta oo ummaddan ka naxaysana maanta ta dhacday waa inay ku tusaale qaadato waa salaamad